بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. waxaan jeclahay maanta waa maalin murugo weeye inaan tacsiideeyo on ka tacsiideeyo dadka reer Soomaaliya especially dadka Muqdisho dilkii foosha xumaa ee shalay ka dhacay hoteelka Afrika. waxaan si gaar ah u tacsiideynayaa geerida ama dilka ku yimi General Galaan oo ahaa raggii geeshkii Soomaaliya ciidankii Soomaaliya Somali Republic maaha Soomaaliya Somali Republic agaa u taagay oo ahaa nin geesi ah dagaal 77 waxaa ninkii ilaa Kaaramarle gaadhay buu ahaa waxaa nin taariikhi hayay encyclopedia ahaa waa minarkii qore ku harsanaa ee taariikhda Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo guud ahaanba arrimaha Soomaaliya geeska xogogaalka ha marka waxa leeyahay toosa gaala taladiina ma hayso farmaajo ma hayo taladiina gamciinay ku jirta taladiina gacanta ku qabsada wixii ka dhimana Soomaalida kala idila diyaar baanina laakiin qadiyada ka dhigay qadiyad aleediin oo idugu hormuud ka tihiin ka dhiga markaas aan uga gacansiin doona laakiin Mareykan baa halkan hadlay Turki baa halkan jooga Qatar baa halkan joogta taladin meeday 1994 markii dagaalka sokeeyay ka dhacay Soomaaliland ayaa nin German wuxuu nagu safiri haddii maanta taladiina gaadho weydaan wax iman doonto maana adoonsaan heshiisaan laakiin taladiinu gacma ka baxdo oo gacma kala gasho maanta taladiinu gacma kala gasho Ethiopia gasho gacanta ku haysa Kenya gasho gacanta ku haysa Mareykan baa gacanta ku haya Qatar baa ku haysa Turki baa ku haya wax gacanteed ku jira ma jiro inta danteeda wadata dan Soomaaliyeed iyo dan Soomaali midna ma wato iyo dan banaadir waxaan leeyahay waan ka tacsiinaa ilaahay jannada ka waraabiyo dadka leeyahay galaalna waxa weeye taariikh buu leeyahay waa in meel ugu magac wadaan xus loo sameeyaa iyo intii kala dhimatana ilaahay sabri iimaan